shirkan oo toddobaadkiiba mar ay yeeshaan madaxda iyo maamulka wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada xukuumadda federaalka ee Soomaaliya waxaa saaka shir gudoomiyay siyaaxaha agaasimaha guud ahna agaasimaha maamulka iyo maaliyadda wasaaradda waxaana diiradda lagu saaray dardargelinta howlaha qaran ee ay wasaaraddu shacabka Soomaaliyeed u hayso inta kadib ayaa siyaaxuhu waxa uu kormeer ku sameeyay xafiisyada bulshada loogu adeego ee wasaaradda sida waaxda gaadiidka rayidka ee Fisher-Bra taa oo dakhliga maaliyadeed ee dalka inta badan uu ka soo xaroodo xafiisyada lagu bixiyo leesinada iyo xafiiska kala bedelka gaadiidka la kala iibsado qaar ka mid ah shacabkii saaka adeega u soo doontay Fisher-Bra ayaan la hadalnay oo aan wax ka weydiinay fududeynta adeegyada dawladeed ee ay soo doonteen waxa uu imaaday mootooyin taargooyin u imaaday si hufan lagu shaqeeyay waana wata hadan waa kuwana waxa la weydiiyay aqoonsi ma leedahay dhahay aqoonsigii aan sheegay aqoonsigii aan keenay waxa kale oo la weydiiyay marqaatiye ma wada taale dhahay marqaatiyada yaa la imaaday aqoonsigii yaa la imaaday taargooyinkan u jeedaa li sameeyay kullee wax sharciya la weydiiyay aqoonsigii iyo macluumaadkii laga rabay waana dhiibay ma sha Allah waana dhamaatay ما wax culays ma dareemin sidii wax culays wax leeyahay ma jiraan wax walba sharci waay sharcigeeda hadda soo martana waa ku dhamaanay lacagaha lagu shaqeynayo halkee ma maaliyaddan ku shubaa marka akoon maxamed cabdi cismaan faradheere madaxa warbaahinta wasaaradda ayaa ka warbixiyay ujeedada shirarkii madaxda wasaaraddu ay yeesheen maanta iyo kormeeradii xigay maanta shir ayaa ka dhacay wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada ee dawladda federaalka Soomaaliya shirkaas oo ahaa shirkii toddobaadlaha ahaa oo uu shir gudoominayay kusimaha agaasimaha guud ee wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada Khadar Cabdullaahi Aadan shirkan oo looga hadlayay dardargelinta howlaha wasaaradda iyo shaqadu habka ay u socoto ugu dambeynna warbixino looga dhageystay agaasimayaasha waaxyaha wasaaradaha iyo sida ay shaqooyinka wasaaraddu ay u socdaan dhammaan agaasimayaashu waxay soo jeediyeen in la dardargeliyo howlaha shaqada iyadoo ugu dambeyn kusimaha agaasimaha guud ee wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada Khadar Cabdullaahi Aadan uu kormeer ku sameeyay xafiisyada kala duwan ee wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada iyadoo oo uu mid u booqday habsami u socodka ee shaqada wasaaradda intii aan kormeerka lagu guda jiray waxa xataa aan la kulanay dadka loo adeegayo si maaragtay loo weydiiyo sida ay ugu qanacsan yihiin habka shaqadu ay u socoto sugaal macalin maxamuud warbaahinta qaranka Soomaaliyeed magaalada Muqdisho.